magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo xilligan xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa xilligan ku sugan dad danyar ah oo ka soo hayaamay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool waxaana ka jira dhibaatooyin bini'aadanimo oo aad u baahsan kuwaas oo si weyn looga dareemayo xariyaha barakacayaasha iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran magaalada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdicasiis iyo hay'adaha samafalka ayaa ka qayb qaatay gelinta dadka saboolka ah iyo caawinta ciyaalka agoonta ah hase yeeshee waxaan la dafiri karin kaalinta muuqata ee uu ka qaatay caawinta ciyaalka Eroolaha Axmed Maxamed Durow wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Durow waa wiil dhalinyaro oo aqoon durugsan u leh miisaaniyadda misna nasiib u yeeshay in uu mas'uul ka noqdo ummadda reer Koonfur Galbeed sida uu asiga uu sharaxayo bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacayga oo dhameystiran waa Axmed Durow Axmed waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxbarashadayda heerka hoose ama dugsiga dhexe waxaan ku qaatay magaalada Marka gobolka Shabeellada Hoose waxbarashada heerka dugsiga sare waxaan ku dhameeyay magaalada Muqdisho sidoo kale waxbarashadayda heer jaamacadeed first degree ama heerka koowaad ee jaamacadda waxaan ku qaatay isla magaalada Muqdisho jaamacadda Simad sidoo kale waxaan waxbarashada heerka labaad aan ka diyaariyay jaamacad ku taala dalka India xilligaana waxaan wasiir ku-xigeen ka ahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliya waxay u muuqataa mid ay dhiirigelinayso dhalinta Soomaaliyeed haddaba waa kan Axmed Durow oo sharaxaya xilliga iyo qaabka uu ugu soo biiray saaxada siyaasadda ee dalka ku soo biiritaanka saaxada siyaasadda waxay ahayd wax in muddo aan ku taamayay waxay ii suurta gashay oo aan ku soo biiray ka wasiir ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkii 2020 oo aan noqday wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya tan iyo intii uu hayay xilka wasiir ku-xigeen ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed wuxuu wax badan ka qabtay dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Baydhabo iyo caruurtooda wuxuuna inta badan kala qayb qaadan jiray dhibaatooyinkooda wuxuuna ku dadaali jiray in uu daboolo baahiyahooda haddaba waa kan hadallo kala duwan oo uu ka jeediyay Axmed goobo kala duwan oo uu ku caawinayay dadka danyarta ah waa mas'uuliyad qof walba oo doonaya dadkiisa iyo dalkiisa inuu wax u qabto runtii uu dareemayo anigana waxaan dareemayaa mas'uuliyad ah inaan dadkayga iyo dalkayga wax kasta oo aan awoodo aan u qabto taasaanan waqti badan iyo juhdi badan aan u kaliftay inaan geliyo maadaama dalkeena Soomaaliya ay dad fara badan ay ku dhibaataysan yihiin oo dadkaasna aanan cidna u maqnayn ceelna aan u qodnayn run ahaantii markii laga hadlayo hay'adaha humanitarian kana inta badan baahidooda aysan dabooli karin oo qof kasta oo maaragtay Soomaali ah laga rabo inuu dadkiisa u istaago aniga waxay ahayd arrin aan mas'uuliyad gaar ah inay iga saaran tahay aan dareemayo saadaradeed waxaan maaragtay juhdi badan aan u geliyay inaan waqti badan aan geliyo si dadkaas aan wax ugu qaban lahaa muhiimadeedana waxay ahayd dadka masaakiinta ah ee marka qaar laga yaabo inaan maxaa la yiraahdaa aynan xataa haddii caawinaad loo keeno aan la gaari karin inaan aniga luguhay ugu tago soo booqdo dhibaatadooda arko kadibna wixii aan awoodo aan gaarsiiyo waxyaabaha ugu dhaliyay kamid tahay maxaa yeelay dad caawinaadooda laga yaabo inaysan ama curyaan yihiin ama indhoolo yihiin oo dadkii caafimaadka qabay ay soo baxayaan markii caawinaad loo keeno marka laga soo tago caawinta dadka sidoo kale Axmed wuxuu kaalin mug leh uu ka qaatay gudashada waajibaadka loo igmaday ee ku aadanaa howlaha wasaaradda haddaba waa kan isaga oo ka hadlaya mashruuc cusub oo ay hadda ay bilaabayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shaqo abuur waa run ahaantii waxyaabaha wasaaraddu ay
aad waqtigeeda iyo juhdigeeda inta ugu badan ay gelisay waaye maxaa yeelay waa baahi maanta taagan oo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ku nool Koonfur Galbeed waxay naga sugayaan inaan anagu aan shaqo abuur aan u sameeyno runtii waana caqabad taagan markii dhan walba laga fiiriyo wasaaradda dhammaan qaybaheeda kala duwan waxaan waqti iyo maaragtay dadaal fara badan aan gelinay inaan dadkii aan shaqo abuur aan u sameeyno gaar ahaan waxa aad xoog aan u saarnaa qofka shaqo ma heli karo ilaa uusan lahayn skill ama xirfad. inta badan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa muujiyo xiliyadan oo kale dadaalo ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhibaatada u nugul ee ku jira xaryaha barakacyaasha ee magaalada Baydhabo. Maxamed Khasiir Jito, RTN TV, Baydhabo.